بسم الله الرحمن الرحيم شرقدونك قولها بارلمانك جمهورية الصوماليلاند مدنياشا قولها بارلمانك شرفت له قدوميها محكمة السرع حبناها قولها وزيرها تلياشا عيدمدا قلبك السيدة مرتي شرفتا شعب وينها الصوماليلاند بدأ يدود ميرا جوغان با السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدب waxa sharafi iyo xurumo in aan maanta hor imaado golaha baarlamaanka jamhuuriyadda Soomaaliland oo aan ka jeediyo khudbadii sanadka 2020 sanad waliba waayihiisu leeyahay iyo marxaladihiisa sanadkii tagay 2019 Soomaaliland wuxuu ugu santan yahay sanad nabadeed sanad midnimo sanad barwaaqo ilaahay roobiga siiyay iyo sanad horumarineed walaalayaal hadalkaygu wuxuu ku koobnaan doonaa dhowr qodob ka horeeya waa dhaqaalaha adeega bulshada nabadgelyada ka dhagaha loo taagayana way dambeyn doonaa dhaqaalaha waxay ognahay dal waliba wuxuu ku hormaraa waa dhaqaalaha nolosha dadka oo dhan dhaqaalaha ku xiran tahay dawlad kasta oo caalamka jirtana dadkeeda waxay ugu xirsaaratay dhaqaalaha waalidku wuxuu u xirsaaran yahay carruurtiisa guriga iyo ubadka dhaqaalahooda odayga reerkuna wuxuu ka mas'uul yahay reerka uu hayo inuu meel dawlad dejiyo oo uu u sahamiyo oo xoolaha iyo deegaankaba uu dhaqaaleeyo marka dhaqaaluhu waa halbowlaha nolosha halbeega dhaqaalaha ee caalamku ku xisaabiyo GDP la yiraahdo jamhuuriyadda Soomaaliland wuu kordhay sanadkii 2 sano soo dhaafay 2%. marka loo eego adduunka waa meel hoose Afrika oo dhan marka la eego jimcada qurama ka dhaxaysa ay qiimeysay dhexdhexaadkeedu uu koraya Afrika dhaqaalaheedu wuxuu koraa 3.4% waad arkaysaa Soomaaliland way ka hooseysaa sababtuna waxa weeye duruufo badan oo inoo gaara oo ay kamid tahay inaan aynaan la xiriirin baanka adduunka iyo hay'adaha caalamiga ah oo aynaan wax la wadaagin in aynaan dawladaha caalamka ka qaadan karin amaah iyo wax soo idaarsi iyo deeq toosa oo adagtii sababta ay waxa dhiban tahay dagaalka ay ugu jiraan dawladda Soomaaliya waxa lagu guuleystay in sicir bararka hoos loo soo dhigo 2 sano u dambeeyay 19 laga soo balaabay isagoo jooga maantana uu marayo 4%. dakhliga dalku wuxuu kordhay sanadkii dhaweyto marka loo eego oo daraskii la sameeyay 4.5%. shilinka Soomaaliga qiimihiisa waxa hoos loo dhigay waxa kor loo qaaday oo uu qiimihiisu kor u kacay 1.22 2 sano u dambeeyay waxa miisaaniyadda qaranka sanadkii tagay 2019 waxa laga maalgeliyay mashaariic qiimahoodu dhan yahay 150 bilyan 400 milyan 320 Soomaaliland shilin sanadka soo aynu imika bilownay 2020 waxa laga maalgelin doonaa mashaariic horumarineed dalka oo qiimahoodu ku kacayo 108 bilyan 827 milyan 455 809 Soomaali shilin mashaariicdana waxa laga fuliyaa gobolada oo dhan waxa la hirgeliyay nidaamka xisaabaadka dawladda ee loo yaqaan BFM nidaamka maaliyadda wuxuu kor u qaadi doonaa hagaajinta iyo kor u qaadida nidaamka maaliyadda ee dalka cashuur qaadista kordhinta dakhliga dalka beekhaaminta iyo kantaroolka kharashaadka dawladda wuxuu awood siin doonaa adeeg bixinta adeega loo bixinayo la siinayo bulshada
hirgelinta mashaariicda horumarineed iyo kobcinta dhaqaalaha dalka guud ahaan dal kasta waxa saameeya hadba waxa jira caqabado dhaqaale oo waaweyn dal waliba ka ugu weyn ugu dhaqaalaha badan caqabado dhaqaale uu ka cabanaya inaga waxa ay horo kacnay ee taageen wadada iyo cidina taageerin wali waxayna hor yaala caqabado waaweyn oo aynu u baahanahay in qarankoo dhan isugu tago qof iyo koox iyo aqoonyahan iyo karhermiga ah iyo ka badda jooga qof waliba uu aqliga ku qaado inuu ka mid yahay dhibaatada dhaqaale dalka inuu wax ka qabto oo ugu yaraan la fihiisa isagu isu maamul ku xiriir dhaqaalaha dalka walaalayaal waxaanu nahay dal ay aad u kala fog yihiin waxa uu soo dejiyo iyo waxa uu dhoofiya sanadkii 2019 waxaanu soo dejinay badeecad qiimaheedu yahay 527 milyan 713,970 dollar 527 milyan oo dollar badeecad joogta ayuu soo dejinay oo ugu badan yahay qaadku waxaanu dhoofinay 211 milyan 782,850 milyan faraqa inoo dhaxeeya waxaanu diray iyo waxaanu soo iibsanay waa 360 milyan 981,000 iyo 118 dollar bal u fiirsada xilwaano deficientka aynu ku jirno waxaan goofinay iyo waxaan soo dejinay waa 360 milyan qaadkaynu intaan ka dhoofnaa waa 500 aynu sanadkii cunaa in soo gaa lacagta deficientka ah ee inta leeg ee misaaladeenu saa isu khalaftay waxa kaba ilaahay ma ka gaadhay qurba joog biirka soo diraan iyo dadaalka uu sameeyay dalkooda iyo dadkooda dadka qurba jooga iyo hay-adaha inala shaqeeya lacagta qalaad ay soo galiyeen haddaba si aynu uga baxno khasaaraha waxaanu soo dejinaa iyo waxa dhoofinaa ay kala badan yihiin dhammaanteen waxaanu waajibay inaan dhaqankeena wax ka bedelo waxaanu nahay ummad fuqara ah oo haddana waxaan afafka qaad ugu dhahdo haddana istihlaak wuxuu kharash garaysa oo waxba dhigan wax margato wali rag hoo badnaaday haddii maalintii 20 dollar soo gasho 20 kaba ugu weeyay wuxuu ka hormarinayaa daruuraadka qaadka iyo balwadiisa ay ka hormarinayaan marka walaal tirada waxaan u soo qaatay inay umadu fahamto dhiigbaxa ku jira dhaqaalaheena dadka qurbaha jooga lacagta ay soo dirayaan dadkii waaweynaa ee dadka xidhiidhaya way say gabaabsi duruufihi adduunkuna way isbedelayaan dhalinyaradii tagtay ee halkaa ku dhalatay iyagii baa xaaseeshay waa xaaladu way sii yaraanaysaa dee markaa haddaynaan isku tashan in badan bayna soo taageereen oo aynaan dalkan u fikirin weliba golayaasha qaranka ee dejinta leh maxkamadda leh ee fulinta leh iyo ganacsatada dhaqaalaha dalka haysa iyo qof waliba haddaan xil ka saarin walaalayaal mustaqbalkeenu ma fiicnaanayo haddayna wax ka diraan ka noqon saan uga baxna taa dadaal badan baa la sameeyay inuu warshado yar abuuro oo iyagoo dhibaatadooda leh oo markuu ninkii warshad soo iibinayo assurance-kii iyo RC-gii wax badan ay ka cadiban yihiin dawladdu waxay ku tala gashay inay caawiso xukuumadaha waxaanu sababta ku caawinay warshadaha iyo qalabka ay soo dejiyaan 15 milyan oo dollar oo cashuur dhaaf ah si ay u galaan wax soo saarka beeruhu sanadkan aad buu u wanaagsanaa ilaahay ma hadii roob badan baynu helay nimca ilaahay baynu dadkuna waa dadaaleen waxa 240 saacadood loo qaybiyay qoysas dan yar ah 14,000 oo qoys si ay saacado u qotaan gobolada oo dhan waxa loo qaybiyay dad kale beerleyda la waraabiyo ee beer roobaadka ahayn ee beeraha biyaha dooxaya ku dhudhow 4,750 mitir oo tuubooyina oo ay kaga soo baxaan biyaha marka dooxii beer ijaarkii mid u dhawaado kii labaad kii saddexaad waa inaan tuubada dheereena si ay beeraha u badino waxaana loo qaybiyay qoysas gaaraya dhowr iyo 14 qoys waxa la bareejiyay oo dawladdu bixisay 7 cagaf
oo la siiyey magaalooyinka beerato iyo oo togdheer iyo daadbareera waxaa beeraha sanadkan soo go'ay dalag aan filayna inuu ku filaado ugu yaraan bil ama laba dalkeena haddii si fiican loo isticmaalo waxaa cudurro kala duwan laga tallaalay 3 milyan oo neef oo xoolo ah waxaana ka qayb qaatay 38 kooxood oo ah kuwa xoolaha caafimaadka xoolaha qaabilsan waxaa la daweeyey malyan iyo badh neef oo isugu jira ari geel lo iyo fardo waxaa calafka xoolaha loo qaybiyey lagu naaxiyo loo qaybiyey 19,550 qoys waxay xukuumaddu soo iibisay 4 doonyood oo la doonayo in lagu tababaro dadka si ay uga faa'iideysan khayraadka badda kaabayaasha dhaqaaluhu sida wadooyinka dekedaha iyo garoomada diyaaraduhu waxay qayb weyn ka yihiin horumarka dalka waxaa si xawli u socda ballaarintii iyo casriyeyntii dekeda berbera waxaana dhammaaday wejigii hore 43%. waxaa la dhisay oo hadda la bilaabay dhismaheedii oo ilaa 7% gaaraya berbera corridor wadada isku xidhaysa berbera iyo xadka Itoobiya wajaale waxaa dhawaan la bilaabi doonaa dhismaha wadadii ka leexanaysay Hargeysa marka berbera laga soo baxo si culayska gawaarida waaweyn magaalada aanay u ciriiriyeen oo 22 kiiloomitir ah waxa dawladda Soomaaliland iyo Imaaraadka Carabtu ku heshiiyeen in madaarka berbera oo ka Afrika ka weyn 4 kiiloomitir iyo 500 oo dhisan in garoonkaas uu noqdo mid madani ah oo baaci mushtarka ka qayb qaata oo diyaaradaha caalamka isaga goosha wadada Burco Ceel Gaabo waxa dhamaaday 201 kiiloomitir 94 dawladii hore dhistay inta kale 107 kiiloomitir labada sano dambe la dhisay waxa la dhisay 449 kiiloomitir oo kamid ah wadada isku xidha Hargeysa Kalabayd waxa dhamaaday bridge-ka isku xidha Amuud iyo magaalada Boorame waxa dayactir ballaaran lagu sameeyay jidka isku xidha Laascaanood iyo Tuulo Samakaab iyo Ari Cadays waxa dayactir lagu sameeyay bridge-ka labaad ee magaalada Burco waxa la wadaa mashruuc casri ah oo lagu xakameynayo xawaaraha gaadiidka shirarka gaadiidka oo nagu batay awood sanadkii u dambeeyay 19 waxa shil baabuur ku dhintay 247 qof iyadoo oo laga duulayo muhiimadda oo daryeelka iyo kor u qaadida adeega caafimaadku u leeyahay bulshada dawladdu waxay xoogga saartay sidii ay dadweynaha u heli lahaayeen adeegyo caafimaad oo tayo leh waxa mudnaanta gaar ah la siiyay adeegyada caafimaad ee qaybaha bulshada ugu nugul sida xarumaha daryeelka hooyada iyo dhallaanka waxa si rasmi ah xarumaha caafimaadka dawliga ah looga shaqaaleysiiyay 512 xirfadlayaal caafimaad waxa tababar loo furay aqoon kororsi ah 3,100 xirfadlayaal caafimaadka ah si kor loogu qaado aqoontooda iyo hufnaanta caafimaadka waxa cisbitaalada xanaanooyinka iyo ruuxa caafimaadka lagu daaweeyay 526,273 qof waxa markii ugu horeysay ilaahay mahadii lagu qalay 10 caruur oo wadnaha wax ka qabay oo lagu guuleystay dhamaantood qalinkoodii iyadoo dawladuna dhammaan kharashaadkii caruurta ay qaaday waxa la hirgeliyay 22 xarumood oo adeega caafimaadka ah oo lagu kordhiyay dhismayaashii hore ee jiray mudanayaal iyo marweyn waxbarashadu waa furaha horumarka waana iftiinka nolosha iyadoo taa laga duulay xukuumaddu waxa ay hirgelisay kulliyadda tababarka macallimiinta
waxaan daraasadda ku eegnay markii aanu darisnay in maanta cusbitaallo badan oo caafimaadku adeegana aynu leenahay waxbarashaduna ta dowladda inta gaarkaba iskuulladu fara badan yihiin laakiin loo baahan yahay la gaaray wakhtigii tayada caafimaadka iyo tayada waxbaridda iyo waxyaalaha daruuriga sida cuntada oo kale dhammaantood tayadooda la hubin lahaa ayaynu gaadhay mar xarbeen marin mar dugsiba lama hayno waxa lagu fariisanayay qasacado geed baa loo fadhiyay mar yaa iskuulaha la dhisay mar meel carruurta la gaarsiiyay mar caafimaadba lama haynin mar wuxuuna la soo dejiyay laakiin waxaan u aragnaa in la gaaray waqtigii tayada aqoonta iyo caafimaadka iyo cuntada la sixir hay la gaaray la ilaalin lahaa saadaradeed waxaan furay kuliyadii macallimiinta 400 oo ugu horeeyna waa la qaatay waxa deeq waxbarasho loo diray 450 arday waxa bishii Febraayo sanadkan si rasmi ah u bilaabmay arday kasta oo dhigta dugsiga hoose dhexe in la gaarsiiyo buugaagtii waxbarashada ee sanadkii hore intii aanu qaybinay hore mooyee sanadkana waxa la qaybiyay 100,000 oo buug oo la gaarsiiyay dhammaan daafaha dalka iyo gobollada oo dhan waxaana ka faa'iideystay arday gaaraysa 153,000 iyo 770 waxa la shaqaaleysiiyay 400 oo macallin oo cusub oo la geeyay dugsiyada ku yaala gobollada fogfog waxa dhacda dugsiyada waxa loo dhisaa baahi badan baa jirta in magaalo walba loo dhiso dugsi magaalooyinkana way bateen oo meel walba magaalo laga sameeyay oo waxa la sameeyay magaalooyin isu jira 10 kiiloomitir ama kaba yar marka magaalo walba soo degayba carruur baa joogta carruurtaasina iskuul baa baahatay dhaqaalaheena kolba inta ma wada gaaro marka hay-ado ama qurba jooga ayaa dugsiga dhisa marka dugsiga la dhisa dawladda waxa ku waajibay in macallimiinta gaarsiiso taasoo ka xoog weyn xawliga iskuulada koraya xawliga dhaqaalaheena yahay hase yeeshee sanadkan waxaa mushaaharo loo qaaday 400 oo macallin oo si mutadawacnimo ah ama tabarruc ah wuxuu bari jiray ardayda waxaa la dhisay sanadkan 200 iyo hal fasal oo cusub oo lagu kordhiyay 102 dugsi oo ku kala yaala gobollada Awdal Togdheer Sanaag Sool iyo Saaxib mudanayaal iyo marwooyin waynu ognahay dalkeena biyuhu waa ku yar yihiin magaalooyinka badankoodu waa haraadan yihiin marka roobku raago reemiga waxa ku dhacday dhibaato biyo la'aaneed diyaar garow waynu baahanay biyaha ah waxa la qoday 2 sano u dambeeyay 2 ceel oo dhaadheer bariga horena 160 ka badan baa dawladdii kulmiye iga horeysay ee si ay hogaaminay qoday waxa la dayactiray 66 ceel oo kuwa dhaadheer waxa la dhameeyay sahmintoodii oo hadda la qoday 33 ceel oo kuwa dhaadheer waxa la qoday 8 dam ama baliyo waaweyna xafiir la yiraahdo waxaana la dayactiray 12 dam oo la dhoobo qaad waxa la qoday 153 barkadood oo cusub waxaana la dayactiray 203 barkadood oo hore u jiray dhammaan gobollada oo dhan waxa biyo balaarin laga hirgeliyay magaalooyinka Hargeysa Burco Berbera Ceergaabo iyo Boorama waxa saamintooda lagu jira biyaha laascaanood waxa meel fiican maraya oo lagu diirsado maraya biyo balaarinta magaalada Hargeysa biyo soo saar iyo biyo qaybu mashruuca soo qaabilsan inagu caawiyeen hay'aduhu 66 milyan baa ku baxay dhowr sano socdaa uu raagay eeda marihina qolada maamulaysa laakiin biyo soo saarkii 80% baa dhamaaday imika biyo balaarintiina 30% bay maraysaa si aynu biyo balaarinta magaalada u fududeyno oo u dheereyno maalin walba halkii qasbada la gelinayay nin baa oraya aniga loo dhismaayo waqtigeena la dhisay halkii qasbada la dhigay ee la soo mariyay waa mid ka dul dhisay guri ama stan dawladdu hoosana way maqlaysaa wasaaradda arrimaha gudaha joogtaa waxay baahantay arrintaasi in wax laga qabto la yaab ma leh meeyarka iyo barasaabkii dakhliga dadka leyn maayaan war halkan waa qasabadii amartay ee ka baro hadegi qofka garan waaye maalin walba buuq iyo xarig iyo darshad galmeeyay waxaan soo jeedinayaa inuu dadku taa iska baraarujiyo oo meelihii danta caamka ah wadadii iyo halka biyuhu marayay iyo halka leerka la marin lahaa dadku ay maqlaan dawladda ila maalba saarmayne marka qofka la isku dhacana waa buuq kala soo kordhay odayga xildhibaanka waxa loo cararaya odayga la xildhibaan leeyahay marka waxaan leenahay arintaasi waan nolosheena aan ka wada hawlgal
shaqo abuurka dhalinyaradeen inkastoo inuu dadaalay oo dhaqaale sameynay oo shaqo qaran abuuray haddana inta badan waa shaqalaad waana dhibaato adduunka jirta inagana gaar ahaan inoo haysata iyadoo afriba sabool ay wada tahay oo aynu la qabno saboolnimada dadka haddana waxaa inoo dheer go'doonka lanaga goodoomiyey inaanu la xidhiidhno hay-adaha caalamiga sidaa darteed waxaanu bilownay in dhallinyarada aynu isugu geyno labada gacmoodba qaranka oo dhan dowlad iyo dadweyne iyo ganacsatada si shaqo loogu abuuri lahaa waananu u abuuri karna haddaynu isku tashanno oo dhaqaale aynu ugu samayno warshado iyo hawl mashruucyada ku hawlgalaa waanu samayn karnaa ganacsadana waxaan soo jeedinayaa inay mashaariic waaweyn maalgeliyaan waddada isku xidha burciyo oodweyne lacag badan uma baahan ganacsadaha maanta shirkadana ka mida maalgeliya way karayaane wuxuu ku qaadan karaa waxaan la yidhaahdo tool inuu dhigto dariiqa laga dhiso custom waqti go-aan loo qabto oo xoolihiisa kala soo bixi karo 25 sano 20 sano intay ku soo baxsay inta la isla eego intaasoo kula dhalinyaro shaqo ka helay iyo mashaariic waaweyn oo kale lamid ah waa la abuuri karaa dhaqaaleeda waa leedahay waa iskaashi iyo aaminaadda inaynu maalkeena gelino dalka aynu u baahannahay taana waxay ku xidhan tahay hogaaminta dowladda oo dhan xukuumaddu koow ka tahay golayaasha sharci-dejinta laba ka yihiin maxkamadaha oo ninkii ganacsadaha uu ku dhirado haddii xaqiisa ama lacagtiisa muran ka gala inuu maxkamad u geyso helayo sidaasay ku xidhan tahay taana waynu kari karnaa inagoo isku dubnaano mooye dhallinyarada ka saar kari mayno shaqo la'aanta baryo laynoo fidiyo waxaanu abuuray sanduuqa horumarinta dhalinyarada oo ah in la isugu geeyo lacag dowladda ganacsatada ciddii la caawinaysa sanduuqaasi wuxuu noqonayaa sanduuq dhalinyarada hal abuur kale laga amaahiyo lacag ay soo celiyaan oo aan dulsaar lahayn oo aan ku xidhnayn yaad garanaysaa oo aan ku xidhnayn yaa kaa dambeeya iminka ninka islaa baan lacag kama baanka la yaab male wuxuu hubinayaa isagoo warwar qabo qofkan hadduu lacagta siin waayo inuu wixiisa waayo maxkamadu ka u dheeraadaan in idhaahdo qof lacagtaa soo celin kare oo anigu aan garanayo ama dhaqaale leh ama hubo ii soo sheega kuu keena 90% dadka qaarkood looga garanaya lacag ama ninkii lacagta lahaa in yaro halkaa joogo agooro aabihi jawaadi ku dhintay ama aabihi ku dhintay tukaran lacag iska geli maayo marka dadkii dalkan u shaqeeyey waa dulmay in loo gurmado u baahan yahay oo soo tago waxaan soo saaray xeerkii sanduuqa lagu abuurayay waxa kaloo ku sugay dagaalkii ugu horreeyay oo $200,000 golayaasha waxaan abiil soo jeedinaya inay ka hawlgalaan si sanduuqa loo kobcin lahaa dhalinyarada shaqo loogu abuuri lahaa amniga dalka ilaahay mahadi sanadkan ilaahay nabad buu siiyey amni buu siiyey ilaahay baa ku mahadnaq talabaad mahad labaad waxa la shacbi dhammaantood وحلا أمانته يا مهضم هذا الجراياش ورجع لك شو رجع بدنا أنا هبينا بدن يا معلم بدن يا بلا بدن أي كم أغنية نبضينته شقاقين في الجولة كذا عبر يا قلبي ويري هين حلوانا أما وزيره أما عيدنا أو أوي أما بشي لبت شير وبيحل نبضين يا أورب يا وريك يدت كين أو إن رجعت أو إن رقعتي هذو يهم الحلقات هذو يهم علمو هذو يهم جنعسته إلهي مهدي موافقة إياه سافرت أيه نكد منه وح الله يشقاقة هاي ورن ذكر ما تدرك إلى ذكر قول ولا أمر وحكروا سجن حدود هذلك لما أنتم وعلم قلب كسلان كجذاميه لنا هو إلى أن عدو سودا فين iyagana waa uga mahadnaqaynaa qaranka xilka adaga oo hayaan waxaan u rajaynaynaa in ilaahay ka abaal mariyo dhibta ay hayaan dhammaan ciidamada qalabka sida oo aanay dheef u dhigata ka helin laakiin dalskooda nafta u helin ciidamada amniga kuwa wardoonka kuwa badda kuwa xabsiyada haya maxaabiista oo kuwa ugu badana iyo qolo leedahay booliiska oo iyagu maalin iyo habeen dagaal ka bixin 24 saacadood ninka booliiska ka buu gashay شعبك وحن كعد سنة golayaasha iyo shacabweynaha waxaan ka codsanayaa in ay la shaqeeyaan oo dhibta ka qaadaan ciidamada booliiska iyo gurmadka joogtada ah iyo dagaalkan bilaamicnaha ama xaafadaha islaayeen ama reeraha islaayeen
أما تقول هاي إسرائيل البوليس كأننا أطردون هوش بركة قاضي إلا هذيك كروي نقدر أمانة يعني بالوالبن البوليس أمر عن ولا قول في نبر نجح حبض يستجوا أنا بدي أقول ولا بخلق كمان هاي بالوالبا خاصنا هو نبعته أي كريان قبله وحمش على هاي إن الجسر شيء عدس قرياش يد ويرها أرنتها إن لقى فيتون هذا الله شقي عباد أمي وحكلا أو خاص ضعيف دنبيدي كل عشرين مقالوين كأن يرد سمين شرين بقول كيبا سيدي اللحية تا إلهي مهدي يضنا يسوتك ما كذا عيل يسوي تجي علمه كان عصته ددوينه ماذا حرقمت يبريس كبا ما أنت أنا مقالوين كانوا بقول كيبا تدوات كل واحد كأن سيء سيدا يتوان بلوتكو هاي لما أنتود إذا ماذا قلب كسوة وما هذا هوشة وأنا هدي يقرن وأنا كأماني waxaan uga gudbayaa abaaraha ilaahay ma hadii sanadkan dhaafay roob iyo barwaaqo ah ee abaaruna waa iman kara diyaar garow baa loo baahay wax tashiil baa loo baahay hadii biyaha la tashiilayo hadii biyaha la xiranayo hadii wixii dhaqaalaha la tashiilayo calafka iyo dalaga soo go'a hadii la kaydinayo oo naga khasaaraynin ee meel la dhigayo dadkii ku tabaarooy abaarihii saqar iyo abaarihii hore wax badan baa la taray oo qoys badan baa xoolo iyo lacag cadaanaba loo qaybiyay oo inta badan hay'ada inaga taageereen oo nuga mahadnaqina cid inaga taageertayba waxa ilaahay mahadiya hay'adda kaydka raashinka inay raashin ku filaan karo muddo haday dhibaato timaado ay ku sii sababta bixi karo inay noo hayaan oo ay ku dadaaleen wixii ahayeen inay bayqaamiyeen wixii noo soo go'ayna iyaga lagu ururiyo doorashooyinka laba sano waxay naga dhamaadeen muran madhalaysa oo ah hal la bedelo hal la kala diro commissionka iyo sharci loo kala diro lama hayo waa commissionkii hore waqtigoodu waa dhamaaday kuwa cusub aynu magacawnay kuwa cusub waxay soo mareen jarjarada sharci cidii uu xeer ku siinayso xulaan baa soo xushay madaxweynaha la soo marinayay isna uu iskriin musaaro uu sii daayay baarlamaanka sii daayay maxkamadii baa dhaarisay haddana murankii baa ugu soo noqday kuwan hala kala diro yaa sharci loo kala diro ma hayo meel hala kala diro sharci waa murankii waa kii labadii sano hore ayaa imkan inagu bilowday mar haddii ay xisbiyadii qaranku ku fashilmeen inay ka heshiiyaan arrinta commissionka oo ah war doorashaha inoo qabteen waxa qura inoo furan doorasho gaari karnaa oo doorashadu waajib inagu tahay waa inuu xisbiyadii furaa وما تفهم هرتا يا هرتا mid baa yaab leh dadku waxay lahaayeen oo dadku rumaysan yihiin nimanka golayaasha labada gole ma doonayaan in doorasho dhacdo ee kursiga wax xigsanayaan shacabka inta leegna xisbiyada hala furo waa u furteen taas waxay muujinaysaa in diyaar u tihiin doorashooyinka ha cadaato inay shaqeeyeen taas maanta way cadaato in aan la saxamanayn oo ayda ku sii dhagalay ee diyaartii doorashooyinkii shacabka u dhacay xisbiyada la furo ayaa ka marakacay haddii aan la yiraahdo dhawaan si dhaqsaa waxaan ku soo gudbin doonaa wax ka bedelay kaabista xeerarka ku xeeran si doorashada loo soo dejin hadda xisbiyada loo furay inta waxa ku daraya dad badan ayaa markay la xisbiyada la furay in cabsi geliyo yiraahdo warbuuq waa ka dhig waa la isku qabsan
intaasoo doorashaynu soo marray waynu u bisan lahay inaynu xisbiga furano oo kii laga tira batanka kale u haneeyo oo kii la doortanka kale u haneeyo dhammaan dadkana waxaan codsanayaa inaynu si nabadgelyo hawsha u galno oo aynaan ku doqonniminoo cabsida laynagu akhriya aynaan qaadana aynu dimuqraadiyadda soo ceshanayno arrimaha dibadda waa hal toban dee maanta waayahay arrimaha dibadda intii xukuumadda jirtay dadaal badan waxaan u geysanay in arrinteena qadiyadda Soomaaliya xooggeeda la saaro ururka midowga Afrika waayo soddonkaa sano meel kasta oo aynu tagno iyo report kasta iyo madaxweynayaashii hore dadaalkii sameeyeen iyo golayaashii ka horreeyay ilaa golihii ugu horreeyay Cabdiraxmaan Tuur Sheekh Ibrahim Sheekh Ali Barmaantu lahaa computerka galay Soomaaliland ilaa maanta hal erey baynu hortaagan oo ah arrintaas Afrika u taala Afrika waxa ka tagaa geeska Afrika u taala idinkeeda ka dhaxaysa bilowta wax soo dhah warna waanu saysanayeen kala saar waayahay Afrika gasho loogu horeyso mar haddii halka soo urtay 30 sanadood waxay noqotay inaynu Afrika xoog ka saaro ilaahay mahadi dadaal badan baynu ka galnay waxaan ku bishaareynayaa in maanta Afrika badankeedu u dhagan ugu shahay in qadiyadda Soomaaliland la keeno golaha Afrika Soomaaliya Soomaaliland arintooda la galo haddaba waxa kala haynoo dambeeyo guulaha kale iyo halka la gaaray soo ma bilaawday halkii aad doonaysaa waxaan ka bixinayaa arrintaa warkeeda maanta aad loo hadalhayo laba mid waa wixii wiiga gandhacay ilaa bish 9keedii midna waxaan dul maray 1960kii ilaa imika dhacdooyin u baahan inaan xusuusino da'yar sano u sheegno 9kii bishan February waxaan u baxay magaalada Addis Ababa waxaan u baxay ujeedo kaliya ahayd maadaama Afrika ku shiraysa halka wafdi uu hogaaminayo wasiirka khaarijiguna joogay iyo aqoon-yahano kale iyo siyaasiyiin kale oo Soomaaliyeed dhammaantood iska xil saaray arrinta Somaliland oo kamid ah isnaa oo kamid ah Maxamed Biixi Yunis oo kamid ah gudoomiyaha xisbiga wadaniga Cirro oo meesha soo dhamaantay aanu kamid ah isnaa qadiyadda in la daafaco iyo laga wada oroleeyo ayaa waxa loo baahdaa ana inaan ku soo xoojiyo markii la helay dad badan oo dhigan ugu madaxweynayaal wasiir khaarijiyaal dhammaan la kiiskiin maxaa qariyay maxaa dadka wuxuu sheegay leedahay maxaa soo bixilay socdaalkan waxaa 9kii waxay maalintii la doortay gudoomiyaha midowga Afrika ee South Africa madaxweynahooda maalmadan wada kala baxay inaan maanta ma soo noqday 9kii markii aan tagay ee ololaha yiraahdo galay ilaa nin waxa doonaya nin walba albaab ku garaacnay cid walba u sharaxnay ayaa habeennimadii anagu inaan soo baxo 10kii ahayd ma 10kii maalintii dambe fiidkii anagu ku soo baxay siyaasada soo baxay ayaa waxaan la soo hadlay xafiiska Prime Ministerka waxaan u sheegay in salaasada 12 oo Prime Ministerka Ethiopia marti qaaday xafiiskiisa saacada aan runtii ra'iisul wasaaraha Ethiopia wuxuu xukumaa dalka labaad ee ugu tiro badan Afrika waa Prime Ministerka Afrika ee isagoo xilka haya helay abaalgudka Nobel Peace Prize عالم كسي وأنا أدوك أنتي سبضان يدك لا إله إلا الله وحبي فقدان أمر السياب تلسكا يعيد وحقر صورني أي آد وطاقيران والله أركو إنه يهاي نكا سمين هي إسبدل جيس كأفريقيا أوردن إسبدل كاسو نبض إسلحقال إسكاشي يهورو مركو قطوة آدبان وغرها أيام فرحي مركو يوعي إنه كان سكاي سيو هل البان كتك أنا آد أرداي يا حفيزك سكوتك كويتو سلام يكفتك بعدي أبي أروسك سلام وحي شيء إن مدحونه صومالي فرماتنا وسوق رايو ورح نسوجه وهذا سوق رايو هلك مركب اسمه وايد صدق حديث هذا وحنا قال الشر
aanan kolley anugu warshihiisa hore u sii ogeyn kana diyaargaroobin aanan maankana ku hayn inuu sidaa fudushkaas u dhacayo waa si kumaateen wasaaraha Itoobiya haddii sidaa noo ixtiraamay oo isagoo oo Afrika oo dhan kuyuu ku jirto oo shirki ku jira arrintaas qadiyadda Somaliland iyo Soomaaliya inuu saa u dareeyo waa uga mahadnaqay halkaa laba waxaan muddo yar baan joognay wixii lagu hadlay wuxuu ahaa Prime Minister Abiy wuxuu yiri waxaan doonayaa oo diyaar u soo diyaar garoon soo xarkaxay inaan dhex galo dhibaatada dhex taala Soomaaliya iyo Somaliland way raagtay waa arrin Afrika u taala waa arrin geeska Afrika u taala marka arrinta waa galaya Somaliland diyaar mahay waan aqbalay inuu arrinteena soo dhex galo ra'iisul wasaaraha dowladda Itoobiya halka wax ka badan maxamed cabdullaahi waa aqbalay inta wax ka badan oo barnaamij iyo ajende iyo faahfaahin midna lama gelin waqtigeeda lama hayn madaxweynayaal baa meesha istaba socday inta iyo sanaaniyo waa yahay aanu diyaar garoonayo waanu diyaar garoobina ayaan ku kala nimid waxa kale oo jira dawlada dhowr oo Afrika leh oo Yurub leh oo Asia leh oo ku jiray arrinta inay dhex galaan Soomaaliya iyo Soomaaliya waxa kamid ah Turkiga waxa kamid ah Sweden oo labaduba noo yimid iyagoo wada socdaan noo yimid oo ku diyaar baan u nahay wada hadal darteedu way noo duubantaa geed walba diyaar baan u haynaa darteedu ku gallo annaga u baahan wax dhex gala labada dawlad waxay waliba culays badan saareen madaxweynaha Djibouti oo yiraahdeen adiguna nagu soo beer haddaan nahay Turkiga iyo Sweden oo isaguna ay soo weydiiyay oo yiri arrintaas la yiraahdo maxaan ka yaraan kuri aad iyo aad baan soo dhaweynaa inaad soo gasho cid wal arrinta soo galaysa waan u baahannahay garteedu way noo go'antay fagaara kama baqayno war ma qabno garteedu way noo taala waa noo duwantay arrintaas intaas ay ku dhamaatay saas aan soo kala mudday bishan 13 February ayaa waxa dhacday arrin kulliba aan badan anigu aan filayn dadka badankooda aan filayn madaxweynaha Soomaaliya ee hadda jooga Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa wuxuu bixiyay raali gelin wixii xasuuqi ka dhacay Somaliland sanad qarnigii tagay dabayaaqadiisii oo dhan 8 kilo oran maayo 9 wuxuu ka soo bilaabay ilaa 60 maalintii inqilaabkii xasankeed iyo lagu diray ninkii sarkaalka ahaa dhinaca raaligelintaasi waa ninkii u horreeyay Xasan Sheekh marbuu si dulmara u yiri waan ku xunaa wixii ka dhacay dhibaatooyinkii dadka ay ku dhacay laakiin faahfaahin ah dilkii iyo qaxii iyo burburkii iyo wixii ku dhacay halka raaligelin baan ka bixinaynaa anoo madaxweynaha qaranka Soomaaliya ah waa arrin aad iyo aad anigu kadkadsigu ahay marka laga reebo qodobka ah kuwii hubka qaatayna cudurdaar baa laga rabaa marka qodobka laga reebo raaligelintaasi waxaan u arkaa inay tahay in talaabo loo qaaday dhinaca nabadda iyo iskaashiga iyo in arrintan la soo dhaweeyo waana soo dhaweeyay waayo garusho waas erayada qaar oo dadka qaarkood laga yaabo in siyaalo akhriyaan waxa ka weyn adigoo qura kulama hadlayo ninka hadlaya raaligelinta bixinay inta in lagu ka soo horjeeda oo asaa warkayni ayuu la hadlay caalamka la hadlay marka maanta halkaas waxay ahayd bilow fiican oo arrinta laga geli karo garowshahaasina waa koow anana waa gudoomin waxa raacay hadaba waxa xumeeyay oo ka dabiyay arrintaasi hadal haynta imaatinka madaxweynaha Soomaaliya la yiraahdo geeso imanaya waa laba aan isqaban raaligelin baa bixinaya oo waxa soo damiya qaranaya iyo waan imanaya waa laba aan isqaban gadaal baynu ka hadli doonaa waxaan ka oranayno imaatinkiisa laakiin waxaynu raacaynaa maxaa dhacay hadaba raaligelinta maxay ku timi maxaa dhacay Jamhuuriyadda Soomaaliland 73 sano waxay ahayd mustacmaradii ama maxamiyadii
mustacmarad ma maxamiyadii ingiriiska 1960kii bishii Juulaay kowdeedii Somaliland iyada oo dawladda oo lixda dawlad ahayd oo ahayd dawladdii 15aad ee Afrika ay xorriyadda ka qaadatay mustacmaraadka oo ay aqoonsadeen 35 dawladood ayaa waxay la midowday dawladdii ka dhalatay Soomaaliya oo markaa ahayd meel ay dusha ka ilaaliyaan sicooda qurmaan ka dhaxaysa oo maalinta Talyaaniga loo dhiibay Talyaanigu haystay ayaa kowdii Juulaay xorriyaddeeda qaadatay bal qabso iyaga si gaar ah ma itiraafin shardi kaliya ayay Soomaaliland kula midowday Soomaaliya iyo koonfurta shardigaasi wuxuu ahaa in la helo shantii Soomaaliyeed oo midooba taana waa la waayay 30 sano oo la raadinayay madaxweynihii ugu dambeeyay ee Soomaaliya wuxuu si rasmi ah uga noqday midnimadii la raadinayay shanta Soomaaliyeed dabayaaqadii qarnigii tagay waxaana ku caddahay komunikeeyadii ka soo baxay shirarkii uu ku galay Djibouti iyo Addis Ababa waxa kale oo jooga oo caawa nool markii laga soo noqday dagaalkii 78kii shir uu wasiirada isugu yeeray rag nool caawa oo Hargeysa qaarkood jooga markii uu soo jeediyay ku daalay raadinta Soomaali weyn oo waynu ka noqonaynaa danteenu ka raacayna taasina waa dhaabad mirtada markii loo codeynayay dastuurkii midnimada sanadkii 61kii dadka Somaliland boqolkiiba 8 baa diiday aftida iyo dastuurka lagu midoobay waxa ka horeysay ma jirin maxay u diideen Somaliland marka yaa la soo diiday waxa u diideen ma jiro ilaa maanta mana dhamaystira ahad lagu midoobay oo labada dawladood saxdeen heshiis ahaa oo dhamaystiran oo xeer caalami ah noqon kara ma jiro 3 sanado midaysan marxaatigeeda la sheegay inqilaabkii 10 December ka dhacay Hargeysa ee saraakiishii Somaliland ciidamada ay doonayeen inay ku socdaan xorriyadda markay arkeen inaan heshiis ahdi jirin oo ka dhaxeeya labada markii la xiray raggii inqilaabka wada xasan kaydii lahaa Allah u xaqiijiyo maxkamad baa la geeyay xamar ku taal 2 sanadood maxkamadda socotay markii maxkamadda gunaanadkeedii la soo gaaray waxa jajka ahaa nin Ingiriis ah oo la yiraahdo Mr Hazelwood waa ka helsan Google cid walba ogtahay wuxuu ku dhawaaqay inaanay dambi lahayn waayo ma jiro ahad midaysan oo labadooda galeen marka waxay daacad yihiin oo hadii ay ciidan xisaabtamaysa dawladdii Somaliland ma jirto dawlad madaxweynaha ninka jooga cad oo qaad kara saasan ku soo baxay waa marxaati cad inaanay marna dhamaystirmin midnimadii aan lahayn maxaa ku xigay markii dastuurkii loo codeeyay ereyga aan maqasheen aadayaalays iyo walaweyn oo atu magaalada yaryar markaa oo mid walba ay ka codeeyeen wax ku dhadhow 200,000 dalka ma joogo waa marka ay soo baxday maxaa intaa ku xigay dhacay markii dawladdii la dhisayay dawladdii ugu horeysay ee midnimo lagu dhisay waxay ahayd 14 wasiir 3 baa Somaliland laga siiyay xaruntiina xamar bay noqotay madaxweynihii iyo prime ministerkii iyo 3 taliya ciidan intaasna ku afur qaatay ka soo gudub dalka Soomaaliland wuxuu ahaa maalinta la midoobay 6 degmo Boorame Hargeysa Berbera Burco Laascaanood iyo Ceergaabo 6 degmo districts bay ahayd koonfurtu waxay ahayd 6 degmo
majeerteria hiraan mudug jubbada sare jubbada hoose maxaa dhacay koob iyo lixdankii maxaa la sameeyey waxaa la soo saaray gobollada dalku ka koobnaanaya midaysan ee Soomaaliland lixdii degmo ee Somaliland waxa laga dhigay laba gobol oo qura gobollada bari oo Burco xarun tahay iyo gobollada galbeed oo Hargeysa xarun tahay lixdii degmo ee koonfurta lix gobol baa laga dhigay ka soo gud dagaalkii 77 iyo kii 64kii labadaba boqolkiiba 70 miisaankiisu wuxuu ku dhacay Somaliland magaalada burburiyo baraka qaxooti culayskii ciidamada culayskii jabhadaha iyo wixii dhacay weyn oo leh tafaasiisheeda halka galbeedna khasaaraha iyo culayska dalkaas ahaa mid u mar way socda gobolada waqooyiga waxa la keenay qaxooti tirintu gaaraysa 400 oo kun waxa koob iyo 10 xero looga dhisay Somaliland jalaqsi oo kaliya ayaa xero looga dhisay koonfurta inta ay midaysnaayeen labada dal wixii dhaqaale horumarina ama mashaariica ee caalamka ugu deeqay bariga galbeed wixii laga guraayay Ruushka Mareykan iyo Carabba oo bariga aad u irmaanaa boqolkiiba 7 kaliya ayaa ka soo gaaray Somaliland oo ahaa wadada ka soo Burco soo gaadha ilaa iyo socota ee Hargeysa galbeedka u baxday ku ekeed kala baydhka iyo warshadii sibirka ragina wada joogtay ka mid baa lagu daray wax kala wahay halka markay marayso waxa lagu dhawaaqay asal si loo raadceeyo xorriyadii Somaliland ee luntay lixdankii dagaalkii ugu weynaa wuxuu dhacay 1988kii dawladdii markaa jirtay waxay soo weerartay shacabkii iyo magaalooyinkii Somaliland boqolkiiba 90 magaalooyinka qaar ayaa la baabiyay magaalooyinka waaweyn oo dhow waa la burburiyay buuga ay qortay dawlad dadkeedii dilaysa raaqiye ay qoreen qolada maartay xuquuqda aadamiga ayaa sidii tiin u hayay muddo laba wiiga waxa lagu dilay 50 kun oo qof magaalada Hargeysa iyo Burco iyadoo magaalada ka weynta leegay diyaarada magaalo walba ay burburinayay haddana meelaha dadku badan waxa lagu weeraray diyaarado taangi madaafiic iyo gaasas ciidamo lugaha waxa barakacay 600 oo kun oo deganaa magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland mid walba gobol walba ayaa ka qaxay oo u farxaday gobolada jaarka ah iyadoo xiriye waaweyn looga sameeyay bariga Itoobiya kontanka kun ee hore ee wiiga diyaaradaha iyo madaafiiciyada ku laayeen in ka badan oo ilaalkeeda ayaa sirc iyo darxumo u dhimatay umule daale waayeen waxa la baabiyay boqolaal sano wixii ay toconayeen Somaliland ee adduunyaha ee aqoonaha ee buugaha waxba laga bixin waa la cirib tiray taariikhda Somaliland si ula ka soo baabiyay hay-adda jimciyadda qurumaha ka dhaxaysa human rights qaabilsan iyadoo kaashanaysa unuga ama unitka u qaabilsanaa Somaliland UNCO qodkooda heerkan Google 2001 waxay ka marag fureen oo xaqiijiyeen qoraalkooda ku qoreen wixii ka dhacay Somaliland dawayaaqadii qarnigii tagay ee dawladdii Somali Democratic Republic ay ku samaysay inuu ahaa xasuub bin aadam waa marag madoon waana tuu ka marag furaya farmaajo dalka Norway
waxa la xaqiijiyay oo imika la hayaa sahankooda 43 xabaalo wadareed oo dadkii qaar baa iyaga oo nool kal sheekh magaalada la yiraahdo inta dadkii lagu riday goof lagu uriyay iyaga oo nool iska rogooyin lagu dulmo qaar baa iyaga oo nool gabri lagu guuray waxaa soo dhanka soo socdo iyadoo waxaa soo dhamay dhaceen 18 May Soomaaliland burcay soo tiri markay aragtay Soomaaliland wax garadkeedu ugu dhamaa markay aragtay inaanu jirin axad midaya Soomaaliya Soomaaliland oo dhammaystiran oo caalamiga sharci qabanaya markay aragtay sida dowladda Soomaaliya ee la yiri hada doorashadii Soomaaliya loogu hukumay in Soomaaliland ay warba u tashaday markay Soomaaliland aragtay in dowladda Soomaaliya Democratic Republic ay si toos ah uga noqotay balantii ahayd Soomaaliland hal doomo markay aragtay Soomaaliland ay garowsatay burburka iyo dulmiga iyo dilka iyo dhaca iyo xumaynta loo geystay iyada oo madax dhaqameedkeeda siyaasigeeda suldaankeeda jabhadkeeda ciidan beeleedkeeda isu dhan waxay go'aansatay in dalka lagu soo celiyo halkii uu joogay 26 Juun 1960 oo uu gaari karay waa rabitaanka shacabka waa codka ugu weyn ee xaqiijin kara waa codkii maalintii hore shacbiga Soomaaliland ee shuruudaha lagu geeyay xamar la yaa garaad waa dadkii lahaa midnimada la doonaya waxba ku rasuul Soomaaliland soo doonaya maanta waxay leeyihiin maya waa noo eednay ku noqon maayo intii ay saddex ka sanadood kala maqnayn intii ay jirtay Soomaaliland waxa taa ka dhacay wixii hore dhacay صدق سنة دولة الصومالية استجد به تماما تنقطع دجال كاي هراء كأذن وعالم كأورنا أي أوجره إن الصومال الهندي إن عرقبة تيار إن أدون كون كوتش سنة وأدون الصومال إن أحيي قراء أي أدون صدام أو قارن كله أي أدون وأنا الصومال الهندي markaan soo koobo dawladdan Soomaaliya maanta ee Maxamed Cabdulaahi hogaaminayo waxay ahayd tii ugu cadaawad badnayd intii dawladda soo martay in kastoo maanta raaligelin uu bixiyay oo moodaysa inuu wado wanaagsan baanay waxba ka daba keenay waxay ahayd dawladdii ugu cadaawad badnayd ee dagaalka ugu kulul la gashay Soomaaliland saad in ugu dawladda dhowr qodob ka soo qaaday waxa kamid ah horjoogsiga dhaqaale iyo cunaqabataynta ee iska hortaagtay Soomaaliland in caalamka ay cid baxay la yeelato ku wax siinaaf inaanay cid bal la baabtiray karin inaanay cid wax siin karin waxa wada soo dagaalka ay ka gasheen mashruuca ballaarinta berbera ee bareerka ah waxa kamid ah horjoogsigii sanduuqa mashaariicda u gaarka ah Soomaaliland ee dawladdu ka siirayeen special arrangement Soomaaliland ee ra'iisul wasaaraha jooga intuu qoray inay lama sii karaan ka dawladda bal hadda dhigo ma la wixii soo dhacay iyo wax marnaa waxa kamid ah horjoogsiga heshiiska ay wada galeen xasan sheekh oo isaga horreeyay iyo sidaay ee hawada iyo lacagta hawada ee aan walahayn in la qaybsado oo qoraal ku aqoon warweyta qaadan sida loo maamulayo oo ay ku doodeen ikaw anaga aan ictiraafay cid kale lama hadlo oo ila ma tahay waxa kamid ah in wax alliyo wixii dhaqaale ah ama deeq ah waxbarasho caafimaad infrastructure ee caalamku ku bixiyo magaca dawladda Soomaaliyeed ee dhaxaysay
inay ku go'aansadeen dhammaantood in aan Soomaaliya waxba loo gudbin ilaa iyaga loo soo mariyo Soomaaliland taa way diiday cadkulad ma sii saddex waxa kamid ah inay dagaal gasho oo xilka u geyso dawlad kasta iyo hay'ad kasta oo xurmayso ama maamusta Somaliland qaran ahaan iyo qof ahaanba tusaale waxay loogu filan inay gini cilaaqaadka u jirtay markay magaca Somaliland iyo shacabka Somaliland karaar iyo maamus muujisay waxaan ku soo koobayaa waxaa soo dhacay 60 sanadood dul xaadiska ah oo kun buug beej laga qori karo oo dokumentigooda iyo waaqicigooda hay ee aan ahayn la kaciya caadifad maanta Soomaaliya iyo qolada koonfur badhoho laba qodob ay been walaaltinimo iyo iskaashi iyo nabad ku gaar kara laba qodob oo kaliya balanka mid saxada ay keen Soomaaliya qolada koonfur inay xishmayso oo xurmayso go'aankii shacbiga Somaliland iyo xaq ay u leeyihiin inay go'aankooda iyo rabitaankooda kaga baxaan midowgii ay sida toddobaadnimada u galeen ee shacbiga Somaliland gaaray 18 May 1991 inay ixtiraamaan kaliya ay ku heshiin karaan laba waxaynu walaal noqon karnaa iskaashan karnaa jaar wanaagsan noqon karnaa marka Soomaaliya madaxweynaha jooga ka bilaabo iyo kuwa soo socda ha maqleen marka ay aqoonsadaan qarannimada iyo madaxweynaha jooga Soomaaliland ee qiraan inaan wahay laba dal oo midoobay iyaga oo aan isqasbin oo frontier maantana si xor u kala baxay taasi waa conclusionka ee ahadii Soomaaliland gaadhay burco distoorkeenu ku dhisan yahay qofka soo dalka hogaamiyana ku qasbay aan kala hadalnaa waxaan u soo degayaa hadal haynta madaxweynaha Soomaaliya imanaya Soomaaliland hargeysa imanaya horta waa hadal hayn laakiin hadal haynta waxu madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi talaabo wanaagsan uu qaaday markuu yiri falgalin baan laakiin wuxuu ku diray markuu yiri waan imanaya hargeysa oo sidee ku imanaya isku diray sidee ku imanaya xeerarka caalamiga ah curfiga dawliga ah aqliga saliimka ah midna ma qaadan karo ninka dawladiisii iyo dalkiisa oo ka madaxda yahay waxa soo dambiye aan galeen ayaa dadku waxa u geystay waliba oranaya anigoo madaxweynaha gobolladii soo siyaarinaya Soomaaliya waan maraya macno soo wado soo inta ma oo taameen aqbalayna maya ma yeelayno suurtagal ma aha waxaan ku talin lahaa maxamed madaxweynaha Soomaaliya talaabo camal ah raali galin baad bixisay waxaan u qaadanay inaad nabad iyo caqli ay soo socoto laakiin ku ibsan mayno erey laga yeeyo oo ku siyaarinaya taasi waxay dhalinaysaa caro horre iyo colaad horre iyo cadaawad inaan u baahan loo baro markaan soo koobo hadal haynta anu wax kale oo garagaran maayo aan ku cabirey gabayga faarax uu kala gooyo ma arinta ka jawaabay faarax wuxuu qosol beer foolal qayaxan qeylan garanay boorana fi laga qaflay qadarno hoosiyaalay toqon baa halkii lagu qatani qoorta soo dhigay maaniga mid la qarshaa la igu qalay lama baaranine qarayala nabad waryaara kala muuqsana wasalaamu calaykum fadlan subscribe si aad u hesho muuqaalo dheeraada
sidoo kale waxaad nagala socon kartaan barta aanu ku leenahay Facebook fadlan si aad ugu xidhnaato like saar bogga Twitterka ayaa sidoo kale aad nagala socon kartaan si aad u heshaan sawirro iyo muuqaalo dheeraad ah muuqaalo qoraallo iyo sawirro dheeraada waxaad kala socon kartaan mareegaha www.somalilandnation.com ama www.madaxtooyada jsl.com